We're entering an era in which our enemies Pathetic reality. Now, what do you see? dhammaan kelibadaad ku dhex arki doontid muuqaalkan waa tiknoolajiyada cusub ee loo yaqaan deepfake hana ka rumaysan wax walba oo halkan ku jira laakiinse waxaan dul istaagi doonaa sida loo sameeyo deepfake iyo sidoo kale muuqaalada ugu caansan ee soo galay dunida halkal weyn ku abuuray. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. All year long, Deep Tom Cruise has been posting videos. iyo sidoo kale akoonada caanka ah ee lagu isticmaalo wajiyada beenta iyo sidoo kale si aad ugu samayn lahayd madaxweynahaaga iyo madaxweynaha kale iska soo horjeegan iyagoo wada sheekaysanayaba. haddaba maanta muuqaalkan waxaan ku arki doonaa bal isku dayga inaad tamayn kartid deepfake iyo sidoo kale wadooyinka aad u mari lahayd samaynta deepfake iyo cidda samaysaba. sidaan wada ogsoonahay maalmihii u dambeysay waxaa baraha bulshada haystay barnaamij cusub oo loo yaqaano deepfake kaasoo lagu sameynayo shakhsiyaad beena. kow waxaa la bedelayaa qofka wejigiisa la bedelayaa, sidoo kale waxaa la bedelayaa qofka codkiisii ama codkiisii oo cod la mid ah ayaa la keenayaa, sidoo kale waxaa la bedelayaa dhammaan dabeecadihii uu qofku lahaa oo qofkii la rabay in xaashatoole lagu sameeyo fagan ayaa loo yeelayaa. ilaa ay gaadhay in madaxweynaha Trump oo la hadlaya Saddam Hussein la sameeyay kadibna madaxweynaha Donald Trump oo aqalkiisa ama gurigiisa ay ku soo galaan si amar la'aan ciidamada FBI-da ee Mareykanka ilaa caadi looga shaqeeyo. haddaba inagoo aan aad ugu sii dheeraanayn waxaan filayaa in la socotaan barnaamijyada ka dhex socda baraha bulshada iyo dadyoga lagu sameeyay sida madaxweyne Joe Biden, madaxweyne Trump, ninka Morgan Freeman la yiraahdo, iyo sidoo kale ninka actor-ka ah ee la yiraahdo Tom Cruise kaasoo isagana akoon fake oo TikTok lagu dhex samaystay lagu dhex isticmaalo qof maxay ahayd tole aan isagii ahayn kadibna uu isagii kii kale fake bixin laftirkiisa uu wareysi bixiyay oo isagii la ogaaday inaan Tom Cruise ahayn. sidoo kale ninka Fast and Furious ku jira film Fast and Furious 9 ee dhukuran ku naqaanaa oo filayay ninka laftirkiisa isagana lagu sameeyay isagoo TikTok isticmaalaya oo hadana barnaamijkaas noqday fake oo akoonkaasina uu noqday fake. haddaba inagu ku fogaan mayno oo istu sameeyno dadyoga isticmaala iyo sidoo kale dadyoga lagu sameeyay kulli wax yar xag hore ku soo aragnay laakiin sabab waxaan eegi doonaa sidee ayaad u sameyn kartaa amba sida barnaamijkan loo sameeyo. barnaamijkan uu fudud yahay oo la sameyn karaa se wuxuu kaga duwan yahay barnaamijyada kale ee caadiga. haddaba ugu horreynba bal waxaad iska soo gashaa Google-kaaga marka soo galo waxaynu qori doonaa deepfake maker baa qori doontaa. kadib marka deepfake maker qortid inta baa oran doontaa inta markan yaano horta waxay noo soo bixi doonaan webs aad u fara badan oo maxay ahayd tole kala duwan laakiin say ku qoran tahay deepfakesweb.com kaas baad tegi doontaa. ka marka tagtid waa website-ka saxda ah ee qolada deepfake sameysa. haddaba halkan marka timaadid waxyaabo badan ay kugu xidhayaan intaynan gelin hawshiisa marka ugu horreysay soo gashay barnaamijkan horta email ayaad ku soo geli doontaa, gmail sax ah ayaad ku soo geli doontaa. haddaba haddii aynu is yar dul istaagno barnaamijkan wuxuu kaga duwan yahay barnaamijyada kale ee caadiga ah ee wajiyada fake lagu sameeyo. barnaamijkan kow structure-ka qofka waa la bedelayaa, sidoo kale waxaa la bedelayaa codkiisa. haddii wajigaaga la bedelo amba hore u jiri jirtay in wajigaaga la bedelo ee barnaamijyo fara badan hore u bedeli jireen hadda waxaa kusoo kordhay in codkaaga amba dhawaaqaagii la bedeli doono sida imika tusaale ahaan oo kale kan. Entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from. haddaba markaad aragtay in codkaagii iyo dhawaaqaagii la bedeli doono waxaa lagaaga baahan yahay adigu inaad laba muuqaal keentid, muuqaalka aad ku bedelaysid amba muuqaalka lagugu bedelayo iyo sidoo kale qofka la bedelayo. sidoo kale barnaamijkan ma aha barnaamij si automatically iskaga shaqeynaya amba hal mar isku bedelaya sida face app oo kale ma aha mid hal automatically amba filter markii is bedelaya. qolo ayaad ka shaqeysanaysaa, qoladaas ayaa si toos ah marka barnaamijka la wareegto maalin dhowr saacadood ka haysanaya qoladaas ayaa maxay tole caadi u soo bedelaysa oo barnaamijka ma aha barnaamij free lacag ayaa lagu bixin doonaa. haddaba balayna rabo haddaba marka soo gashid gmail-kaaga soo gashatid marka ugu horreysay waxaan u doonaa create new deepfake. haddii aad rabto inaad soo yar fahamtid halkaas waxaa ku qoran short tutorial baad taaban doontaa. YouTube-ka ayuu ku xidhi doonaa kadib marka YouTube ku xidho wuxuu ku daawatiin doonaa muuqaal yar oo kaaban waxyaabahan laga baahan iyo waxyaabaha raacaysa. haddaba create new deepfake marka tiraahid wuu kuu soo kici doonaa
waxaan kuu soo kici doonaa page yar oo hore oo tusina. haddaba marka kuu soo kaco xaggan hoose ayaynu tegi doonaa. haddaba looma ogola inaad xidhan tahay miyaarad, looma ogola qofka dambe labada qof midna labada muuqaale aad bedeli sidii kala bedelayo miyaarado. sidoo kale weight kamarada wada haysta isagana looma ogola. sidoo kale dhinac weji dhinac eegayaan looma ogola amba ma sameynayno ay ku leeyihiin. sidoo kale dad fara badan laftirkoodana ma sameynayno ay ku leeyihiin amba ma hagaajin. haddaba xaggan waxaa lagu yiri waxaad doorataa videoga amba maxay ahayd tolay video hore aad rabtid amba video shakhsiga hore maxay ahayd tolay la bedelayo iyo kan loo bedelayo. amba tusaale ahaan waxay noqonaysaa in adigu videoga qofka aad rabtid in la bedelo adigu waxaad diraysaa waxa laga rabaa laba video laga rabaa videogaagii adigu aad duubtay oo codkaaga ku duubtay amba qofka kale uu duubay iyo sidoo kale videogii aad rabtay qofka la taagayo. tusaale ahaan oo kale madaxweynaha oo kale marka tusaale ahaan oo kale waa kan baad arki doontaa person oga waa qof wejigiisa la bedelayo laakiin si structure-kiisu joogayo. person b gana waa qof wejigiisa loo isticmaali doono person a. okay, haddaba halkan muuqaalka laga baahan yahay waa videoga noocaasa resolution-kiisuna nooca yahay. waxaanu gaari karaa ilaa iyo 150 second ama ilaa minute 2 minute meelahaas iska gaari doonaa gaari karaa. sidoo kale waanu inahaada ilaa iyo 40 MB intaa way kooda sameeyeen. sidoo kale waxa lagu sameyn karaa sawir baa lagu sameyn karaa. haddaba haddii aynu nahno bal persona soo geli oo shakhsi soo qaado markiiba halkan ay intan baa ka soo bixi doonta oo ay tahay maxay ahayd tolay totalka waxa weeyaan $5 waxaan laga haysanayaa 5 saacadood. halkaa waxaad ka fahantay in dad caadi ah ka shaqeyn doona muuqaalkaaga oo dad caadi loo diri doono. dadka caadiga ayaa muuqaalkaaga la fiqi doona, soo jarjari doona, soo habeyn doona barnaamijkan ku sameyn doona. haddaba barnaamijkan isagu wuxuu kaga duwan yahay barnaamijyada kale san ku sheegaya shakhsiyaad caadiya ayaa maxay tolo ka shaqeynaya. markastoo security time-kana lacagta ayaa sii kordhisa 5 saacadood ayaana ugu yar. waxaan 5 saacadood ayaan ka haysanaynaa kadibna waxaan kaaga baahanahay inaad maxay tolo 5 saacadood sugtid $15 bixisid. kadib marka 5 saacadood $15 bixisidna waxaa dhici doonta in barnaamijkiisa oo dhammaystiran lagu soo diro sidan oo kale isagoo movie ah waa lagu soo dirayaa. kadibna marka barnaamijkii lagu soo diro waxaad la wadaagi kartaa amba soo gelin doontaa kartaa dhammaan barihii bulshada maxay tolay kala duwanaa. sidoo kale waxaa jirta dhacdo barnaamijkan oo galaaftay gabar saxafiyad ahayd amba hablahan isticmaala social media oo tuulo yar oo wadamada carabta ah deganeyd ayaa lagu sameeyay barnaamijkan wejigeeda iyadoo la isticmaalay. dadkii garanayay iyo dadkii la deganaa runtii waxay haysteen iyada laftirkeeda caqabado badan iyo maxay tolay hadallo badan oo iyada ku soo noqnoqday. kadibna markii dambe waxay go'aansatay in nafta amba ku dhiska jirto. barnaamijkan khatartiisa uu leeyahay runtii waxaan ognahay hadda inaan wali soo gaarin Soomaalida. haddii uu hadda Soomaalida soo gaaro waxaan lacag maaha oo waa waxyaabo iska caadiya laakiin se waa dad wax badan rogi kara sibahan dad badan oo isticmaali kara. qofkan haddii wejigiisa la bedelo shaki oo yargeli karaa laakiin haddii codkiisa iyo wejigiisa la wada bedelo hal mar iyo hal muuqaal oo hore u lahaa oo hore loo isticmaalay runtii way adkaanaysaa in la yiraahdo qofkani qofkii maaha. aad iyo aad muuqaalka ka soo gaadhay fadlan subscribe sar galaalkeena